Abuukar Macali Axmed wuxuu ka mid yahay dadkii shacabka ahaa ee ku waxyeeloobay qarax gaari oo 17kii bishii Abriil ee sanadkani ka dhacay agagaarka meel aan sidaasi kaga fogeen saldhigga degmada Waaberi. magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxay inta badan shacabka ah. Abuukar Macali Axmed wuxuu ka mid yahay dadkii shacabka ahaa ee ku waxyeeloobay qarax gaari oo 17kii bishii Abriil ee sanadkani ka dhacay agagaarka meel aan sidaasi kaga fogeen saldhigga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Abuukar oo aynu ku booqanay hoogiisa uu ka degan yahay magaalada Muqdisho xilli uu ka soo laabtay xaalad caafimaad oo dhanka aragga ah kadib markii uu aragiisa ku waayay qarax xoogan oo ka dhacay magaalada Muqdisho 17kii bishii Abriil ee sanadkani. ugu horreyn Abuukar ayaa iyaga warbixiyay qaabka uu qaraxa u dhacay, nuuca oo ahaa iyo waxyeelada ka soo gaartay qaraxaasi. waxay ahayd xilli galab ah maalin Arbaca taariikhdii ku beegantaa 17 Abriil waxaan ka soo baxay xafiis ku dhigan saldhigga Waaberi anigoo ku socda xafiis kaloon ka shaqeeyo waxaan ku imid gaari walxaa qarxa laga buuxiyay wadada geeskeeda yaalay. gaariga markaan ku soo dhawaaday ayuu igu qarxay. mar alla markuu qaraxa dhacayna waxaan waayay araggayga labadii indhood. waxaan waa iga dhaawacmay lug midig ah, gacan bidaxa iyo qoorta oo firir weyn oo iga galay halbowlaha oo ku sigtay inuu iga dhaawaco, laakiin alxamdulillah Ilaahay iga badbaadiyay. mar alla markuu qarax dhacay indhahan waayay aragga, qofna ma arki karin. sida caadiga ah markii qarax uu dhacana laguma soo dhiirado meesha qarax ka dhacay, waad ogtahay kala laga cabsanaya. sidoo kale waxay dadku cabsadaan xabadaha ciidanka ay ridaan. markii dadaalo fara badan lagu bixiyay sidii loogu dabiibi lahaa isbitaalada ku yaala Muqdisho ayaa jawaabta ugu fudud ee Abuukar ay siiyeen maamulada isbitaalada Muqdisho ayaa waxay ahayd inaana dalka wax looga qaban karin maadaama geyiga Soomaaliya ay ku yar tahay taqaatiir tayo leh oo wax ka qaban karta xaaladda culus ee heysata Abuukar. isla markaana ay Abuukar dantu ay biday inuu u ambabaxo dalka dibadiisa. waxaana mar kale uu Abuukar iyaga warbixinayaa halka uu aaday iyo qarashka ku baxay inuu dib u helo aragiisa. markii oo visa processing inta aad ka samaysatid kadib aad Turkiga tagto isbitaal ayaa la geeyay. isbitaalku wuxuu sameynayaa baaritaanka markuu sameeyay wuxuu yiri indhahan dhaawac gaar waa dhaawac aad halis u ah, qalab casri ay u baahan yihiin oo America iyo France laga dalbayo. maxaa la yiraahdaa qalabkaas ay noo dalbeen 17 maalmood kadibna qaliinka ay igu bilaabeen. halil ayaa lagu hormariyay qaliinka ishii markii lagu guuleystay. isha kale kadib ayaa qaliinkeeda la galay bil kadib. qarash waa caadi, qof hadii shaqo loo qabanayo qarash ayaa la weydiiyaa. waxay nagu yiraahdeen markii xamar aan joognay qiimeyn noo soo gudbiyeen oo $6,000 ah. xagga markaan tagnana waxay nagu yiraahdeen hal ilaa waxaan ku qaleynaa $25,000 oo maxaa la yiraahdaa daadan haysanin wadankiina isaga laabta. adigu alxamdulillah qarashkii aan la baxnay ishii waa naloo qalay. ishii kalena qaliinkeedii waxay dhaheen $12,000 aan ku qaleynaa, laakiin 3,000 ay noo reebeen oo $8,000 lagu qalay. $33,000 ayaa lagu qalay. farqi weyn ayaa u dhaxeeya. xamar waxaa la iga waday ayadoo oo gacanta la iga hayo la iga qaadayo. xamar markaan ka soo degayna anuu indhahayga qabayaan soo degay alxamdulillah. isku soo wada duub magaalada Muqdisho qaraxyada ka dhaca ayaa dhibaatada ugu badan waxay ka soo gaartaa dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada.